maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa maanta waxa ay soo gunaanadi doontaa dacwadda baddeenna ay nagu haysato Kenya iyaga oo halkaasi ay ku sugan yihiin qaranada difaacaya dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamadda ayaana waxa ay labadii maalmood ee la soo dhaafay dhageysanaysay doodii ergadii matalaysa dowladda federaalka Soomaaliya, balse dowladda Kenya ayaa maanta hortagaynin maxkamadda caalamiga ah ee ICJ kadib markii ay diiday in ay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee ka socota maxkamadda ICJ. Kenya ayaana sababaha ay uga baaqsatay dhageysiga dacwadda badda ku sheegtay cudurka safmarka ah ee COVID-19 kaas oo waddankeeda ku faafayo sida ay marmarsiyaha ka dhigatay. Maxkamadda ayaana ka dhaga furaysatay dalab ka yimiday dowladda Kenya kaas oo ay ku doonaysay in lagu baajiyo dhageysiga dacwadda badda. Sidoo kale dadka Kenyaanka ah ee ku dhaqan magaalooyinka xeebaha sida Lamu ayaa waxaa soo wajahay walaac xooggan kaas oo ay ka qabaan in badda loo xukmiyo Soomaaliya sidaasna ay badda ku weeyaan. Si kastay ahaataba galabta ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo gunaanadka dacwadda badda ay nagu haysato Kenya. Dacwadda badda ee u dhaxayso dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaana waxa ay soo jiitamaysay ilaa 10 sano ee la soo dhaafay. Maxkamadda ayaana la filayaa in ay go'aan kama dambays ah oo racfaan aan lahayn ay maanta ka gaarto, waxaana la filayaa in go'aankaasi uu dhaco ugu yaraan 3 bilood ilaa 8 bilood. Dalkeena Soomaaliya ayaanan u rajaynaynaa guushu in ay ku raacdo halkaasi maadaama Kenyaanku aysan wax cadayn ah la tagin maxkamadda isla markaana gabi ahaanba isaga hareen dacwadda badda.